السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نوصل لهذا أمة الصومالية المركزتان 10 aynu kaga hadlayno teknolojiyadu maxay tahay fadlan share garay 10 kan like saar si ay uga faa'iideystaan hadaba 10 kan aynu ugu guda galeynaa waa maxay farsamada teknolojiyadu ama maxay tahay teknolojiyadu waa aqoon leh sameynta qalab ficil oo wax ku ool ah iyo soo saaridda qalabka ereyga technology waa mid ballaaran oo qof waliba waxa uu leeyahay qaab u gaar ah uu fahamsan yahay macnaha technology waxaan u adeegsanaa technology si aan u fulino shaqooyin kala duwan oo nolosheena maalinlaha ah waxaynu ku tilmaami karnaa teknolojiyada sida badeecad geedi socodka ama ururada waxaan u isticmaalnaa teknolojiyad si aan u kordhino awoodeena taasina waxay dadka ka dhigaysaa qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka teknolojiyadu sidoo kale waa habka saynis si loo xalliyo dhibaatada laakiin waa inaad ogaataa waa in teknolojiyada iyo sayniska ay yihiin maadooyin kala duwan oo shaqeynaya gacanta si ay u gutaan hawl gaar ah ama u xalliyaan mushkilad gaar ah waxaan u adeegsanaa teknolojiyada wax kasta oo aan ku samayno nolosheena waxaan u adeegsanaa teknolojiyada shaqada waxaan u isticmaali karnaa qalab wax lagu soo saaro waxaan u adeegsanaa qalabka teknolojiyada ee isgaarsiinta gaadiidka waxbarashada wax soo saarka abuurista sawirrada helitaanka xogta xoojinta ganacsiyada iyo waxyaabo badan oo kale technology-gu waa aqoonta aadanaha oo ku lug leh qalab iyo nidaamyo isticmaalka teknolojiyada waxay ku dhalataa wax soo saarka ama alaabada haddii teknolojiyada si fiican loo dabaqo waxay ka faa'iideysan kartaa bani aadamka laakiin haddii si khaldan loo adeegsado waxay waxyeelo u geysan kartaa bani aadamka asxaabi halkaas ayaynu ku tajinayna 10keenii waaynu maanta kaga hadlaynay waa maxay teknolojiyadu si wanaagsan ayaan u qahnayaan filaya haddii ay cabasho jirto fadlan commenti ka soo bixiya oo commentiga ugu soo qora wixii aad su'aalaha aad ka qabtaan 10kan maanta ayaan idin soo gudbiyay sidoo kale ku share garaya asxaabteena kala duwan si ay uga faa'iideystaan wad mahadsantiin dhamaantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sida iyo is arag dame oo xiiso leh